سؤال شهر وحول الشيخ سلام كذب مقعب والليبان وحن شيخ ويدين إياه محوي هي حدك مصالح ذا هي مفاسد ذا لقوك لقرته حدك مصالح ذا هي مفاسد ذا لقوك لقرته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. دينتنا حنيفية قاعدة أي كتاغنت هاي لو يقانو قاعدة القواعد أساس كأي سقوط ماضو أي وحو يهي جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها إن وحي آدمها مصلحة أدون كيسية آخر ديسا لو سوچيدو لو كيلو لنا كبعية مصلحة أو لكرديو وحي مفسدة إدب أنا إن لغا هرتغو لباتشيو haddii la wada baajin kari waayana in la yareeyo waa asalka diinteenu ku taaganta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala quraanka iyo sunnada wuxuu u soo dejiyay limasaalih al-ibaad adoomada maslaxadooda iyo danahooda in la tuso wixii dib ana looga digo laga baajiyo adduunyo aakhiraba ku iman kara qaacidada markaan u nimaadno مصلحة إيا مفسدة حد ملاذا بمعنى وحكوة السائلك ضابط ملاذا جوابته حين نقول إساء دورنا عنا كتل معنه دنك كوبات ورط مصلحة إيا مفسدة ميزان كيدو وشريعة ميزان المصالح والمفاسد وشريعة هوذا بني آدم يسيد الله تهيماه يعني مركان دوني إنه محد يبقى محد دافع ميزان كي لوجو قرطة شريعة لوجو قرطة قرآن كي السنة لوجو قرطة يوحي لقات لكن هذا بني آدم كي يصير الله تهاي أبغى وتشعلي هاي مصالح ده هي مفاسد ميزان ومعه هاي الإسلام بكيني كرب الروح بوحبال لقمن وحبال لو نكسن وإحنا ولا حويه مركا وفيريوم اسكحديسة قرات كيسية هوديس marka taa wax lagu miisaamo waa qodobka koobaado ama daabidka koobaad oo dhihi karno miisaanku horta waa shariicada wixii iyadoo ay maslaxa ka dhigtay waa maslaxa wixii iyadu mafsada ay ka dhigtayna waa mafsado waa qodobka labaad shay kasto oo la sameeyo tilaabo kastood qaadayso waa inaad fiiriso maxaa ka dhalan kara waxa loo yaqaano اعتبار المآلات يعني مآلات الأفعال والأقوال فلك أتصمينيسي هذا الكاتكو هالليس محاك إيمان كرا محو حنبارسين هاي أما كتلان كرا وأما دبئة أما دفئة وحاكو صباحي مركا شن صورة كو صباحي سؤال مركا اسويديسو حاكو صباحي شن شيئا إنو مصلحة كريه يفائدو ومفسدة بين الله سعني أما ما هو مصلحه لكن وحوجا مفسدة أبا كتيرته ودف دب على الصعدة لكن دف تكبدا لوضع حاله ويبنان تايمر كاو شيء أما واجب أما مستحب أما مباح بالنقطة شيء واجب السمين تيسا أما الصنعة أما إسكاب النام بالنقطة وأمركم مصلحة كلية هي أما مصلحة حق بدنت صورة كلا وحويان إنه الشيء أنا متلاوضنا القاضي الصور نبي يدافع حنبارسين لكن نبكي سبدين أما نب كلية بيهايبة دافع بكم مجرد مصلحة بكم مجرد ومفسدية نب كلية أما نبي يدافع وكتشراني لكن نب كابدن لبضع الصورة وحاران إن أدمرك تلاوض أدقات تلاوض سمرك حرام بين قونس لأن أما دبكي خالص وي أما دبكي غالبة والراجح وحينوصوا هذه هل صورة إن أي مصلحة إيه مفسدة إسلاء هذا دبكي دافكي مركا لبدا كفدود صارتي لبدودي واسميهن
markaasi sida raajixa ah shaygaasi wuxuu noqonayaa xaaraan inaad samayso ku tilaabsato xaaraan bay noqon maxaa yeelay marka waxay ku fadhidaa dar'ul mafaasidi muqaddamun ala jalbi almasaalih yani mafaasida in la reebo ayaa ka horeysa masaalixda soo jiidideeda xaaladaasi waa xaaladda la yiraahdo xaalatu tazaahum almasaalih walmafasid masaalixdii iyo mafaasidii baa isla ekaado is xiriiriyaya marka mafsadada la hormarinaya shaygu marka xaaraan buu noqonaya shanta xaaladood bay marka u kala baxaysaa dawaabida ay culimadu u dajiyeen mar dhankaasan ka fiirinayna dhan kale waxaynu fiirinaynaa oo iyadana fiiro mudan shariicada ahkaamteeda iyo masaa'isheedu waa maraatib martabado kala waaweyn waa qayb waxa la yiraahdaa daruuraat qaybna waxa la yiraahdaa xaajiyaat ama xaajaat qaybna waxa la yiraahdaa tahsiinaat daruuraatku waa wax bini aadamku uu dhibaato gaadhaysa haduusan helin dhib baa ka dhalanaya diintiisa naftiisa aqligiisa xoolihiisa cirdigiisa iyo sharafkiisa dhib baa soo gaadhaya daruuraat baa la dhahayaa waa martabada hore martabada xigtaay wax way xaaja la yiraahdaayo waa baahi aadamuhu qabo laakiin haduu waayo ciriiri buu galaya laakiin dhib weyn gaari maayo laakiin ciriiri buu galaya xaaja la yiraahdaa taana tahsiinaad baa ku xigo waa kuwa ka hooseeya laakiin lagu qurxiyay kuwa hore ama waxay qurxinaysaa xaajiyaadkii ama waxay qurxinaysaa daruuraadkii saas daraadeed markaad miisaamayso mas'aladu ma daruuraad bay kula gashay maxaajiyaad bay kula gashay ma tahsiinaadkii bay joogtaa labadooda iyadana sidaas waa loo kala xoojinaya dawaabida meelahaasna waa laga fiirinay dhinac kale hadaynu ka fiirinana yaa sida wax u miisaami kara waa su'aasha muhiimka yaa sida wax u miisaami karo tilaabadan ama shaygan ama waxani dhibkiisa ma badan dheeftiisa ma badan maslaxa ma ku jirta mafsada ma ku jirta miyay simeeyay yaa saa wax u miisaami kara waxa u miisaami kara al-aalim التقي العارف بالواقع عالم بالأحكام وعالم بالواقع والرباني تقي انت إن لقى هلوه روح أحكام تدينتنا أقون له وعالمة واقع يوحى كهاللينا فهنسا إسلامر كان الله كعبسي كتشره هي ورع حلال ميرت كتشره ninka way ninka miisaami kara masaalixda iyo mafaasida miisaami kara sidaas daraadeed intaaba hadii la isu fiiriyo masaladu dawaabid iyo xuduud bay yeelan laakiin markii laga saaro ama cidii fiirin lahayd baa waxa laga dhigay cid kasta ama cid aan mudnayn baa laga dhigay inay gasho ay fiiriso ay miisaanto waa khaldamaya marka natiijadu ama dawaabidii culimadu u dajisay baan la marin natiijadu marka waa khaldamaysa mafsada lagu dhacaya iyadoo marka maslaxa la raadinayo marka dawaabid way leedahay kutubna waa laga alifay culimada qaar ku takhasusayna waa jiraan oo muxuu ahay kutubaaba si gooniya looga alifay cilmigan ku saabsan cilmu al-masaalih wal mafasid wallahu a'lam